shirweynihii ugu horeeyay oo ay isugu yimaadeen qurba joogta Soomaaliyeed ayaa ka furmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaana shirka isugu yimid wax ka badan 100 ergooyin ah oo ka kala yimid daafaha dunida iyo 5 qaaradood. Hadafka shirka ayaa ah in Soomaalida qurbaha ku nool ay ka arrinsadaan sidii ay isugu abaabuli lahaayeen isla markaasna u samaysan lahaayeen urur ama dalad mideysa taas oo aan siyaasadi ku lug lahayn kana shaqayn doonta maslaxada jaaliyadaha qurbaha iyo midagayga Soomaaliyeed. Furtaankii shirka ayaa dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka Maxamed Shacali Diini, Dr. Maryam Qaasim, wasiiradii hore ee wasaaradda adeegga bulshada, safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Maxamed Mursal iyo safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Kenny Torom. ujeedooyinka shirkan waa laba. kow, sidee loo abaabulaa loona mideeyaa cuduradaha qurba joogta si ay dalalka ay joogaan garab iyo gacal siin karaan arrimaha laga wada midaysan yahay. Tusaale, arrimaha xawaaladaha. Tusaale, arrimaha laamaha socdaalka iyo sharciyada. Tusaale, hiddaha afka suuban ee dhaqanka Soomaaliyeed waxyaalaha laga midaysan yahay. labo, sidee loo maareeyaa oo si agaasiman loo habeeyaa waxtarka qurba joogtu ay ka tarto dalkii hooyo ee Soomaaliyeed. waxyaalahan rajayn lahaa kulligeena aan jeclaan lahaa inay nagala qayb qaataan shirkan inuu ka soo baxo in la yegleelo dallad ama madal Soomaaliyeed oo ka dhamaysa labadii ujeedooyin ee hadda hore kor ku soo xusay. waa qof kasta Soomaali aan la sheekaysta wuxuu ii sheegaa familigiisa gabar fool inay ku dhimatay uur inay ku dhimatay marka waa barabaleen na wada taabanaay gabadhaas inay waxay u badan tahay markay dhalayso inay dhimato haddii ay dhacdo leanno way u badan tahay tii ka badbaada marka umusha ayadoo nool waxay u badan tahay wiigu ku horreeya inay dhimato waxaas oo dhan hadday kasoo gudubta cabla oo ayadoo nool ay dhashay ay faraxday waxba soo contribute karays ee isleedahay waana percentage badanaa dhimanay laakiin tii wax soo contribute karaysay waxay u badan tahay wixii ay rabtay giftigii ay waday bil uusan noolaanayn ilmaha Soomaalida oo aan hal bil gaarin dhimashadooda statistics ma rabi aan ka hadlo dareenkayga waa inaan la qaybsano. I have seen the positive efforts of diaspora returning in Somalia. I have also seen it here in Istanbul on June 2012 when we hosted over 300 civil society actors. waan aragnay muhiimadda ay leeyihiin qurba joogta intii aan joognay Soomaaliya waxaan si gaar ah u sii aragnay markii aan Istanbul shirka ku qabanay sanadii 2012 oo aan isu keenay ilaa iyo 300 oo dadka ka tirsan ururada bulshada rayidka iyo waliba odayaasha dhaqanka oo u baahnaa madal ay ku wada hadlaan xilligaasi oo ahayd xilli muhiim ah oo laga gudbay ku meel gaarkii waxaan xusuustaa shakhsi muhiim ah oo ay sheeko dheerna dhaxmartay kaasi oo ka yimid Minnesota dalka Mareykanka waa Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo hadda xijaabtay. shirkan halka lagu qabtay qiimaha ummadda Soomaaliyeed uu fadhiyo runtii qofka halka fadhiya waxaan aaminsanahay ilaa xad uu dareemi karaa laakiin maanta idaacadaha marka laga maqlo guud ahaan mass communication-ka marka laga maqlo waxaan u malaynayaa waxaa laga filan karo oo ummadda Soomaaliyeed ay ka sugayso inay noqon doonaan wax ayaga wax tari doona mustaqbalka. kasoo qaybgalayaasha ayaa isugu jiray dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda Soomaalida dalalka dibadda, barayaal wax ka dhiga jaamacadaha adduunka, cilmi baarayaal iyo waliba diblomaasiyiin ka kala socotay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo Turkiga. shirkan wuxuu socon doonaa muddo 2 maalmood ah waxaana la filayaa in looga dhawaaqo dalad ay leeyihiin qurba joogta Soomaaliyeed taasi oo uu saldhigeedu noqon doono dalka Soomaaliya. wadamada adduunkana laamo ku kala leh kana shaqaysa waxyaabaha guud ee Soomaalida ku midaysan yihiin waxayna ka mid noqon doontaa daladaha ururada bulshada rayidka ah. Cabduqaadir Muxiidiin, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Istanbul.